هلو والله يا بالله الدنيا ذا نكنا لو محاركت كلابا يا والله صومالي يا عن دين شاقية وانتم مثل محمد أنا شاقية ويلك ولالكي وحان عواي ضد كودجن ناكتي مذوبيد مذوق مريكن كعايد مذوبيد ويلك ولي وي هيستا لعق بيكو قادتا وحلالا وحي وقبتين مجرو سيدي بي ugu dhagan tahay maxaa iraahdaayay walaalayaal yaa ummadda nabi maxamed oo hadda ummadda leh waxbaan qabanaynaayo adduun baan xoreynayna wiilka miskiinka ah oo aan aabba lahayn oo wax rag ah oo walaalaha uu joogin oo inaadeer labaad iyo mid saddexaad oo u joogin magaalada Minnesota ina hayba goox inaadeer labaad mid koowaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad midna uma jooga Minnesota rag aan waxba aan noogu turnayn oo shan isugu nimaadna ayaa jooga ragii awowgay Ahmed Maxamed 15 wiil buu dhalay maanta waxa laga leeyahay wasiirtii reerkaas reer Ahmed wax wiilka ka xoreeya habarta fataalada ah ee haysata intaas oo sanadood lacagta ku qaadata ee xitaa insurance-giisii baakadka ku kashatay boxka boorsada ku ridatay insurance-giisii maanta dhakhtar hadii loo balamiyo dhakhtar medical hadii loo balamiyo insurance lagu geeyo lama hayo insurance-ga baakada weerka ku wadataa bareeba dhakhtar lama geyn karo medical dhakhtar lama geyn karo lama baari karo habartaas waa dilaa weeyaan ninkii Umar Jamaal baa la oran jiray jeerteen baa naagta ka dambeeya asagana lacag badan habarta ka shubtay maay wiilku cusbitaalka laga ugu jiray sidii bayna naagta ay ninkaas ugu heshiiyeen oo ay ninkaas uga dambeeyaan lacagta habarta ka shubtay markiina wiilka habarta waan ka soo deynayaa buu kaba soo deyno taxiyaamay habarta uu wiilka habarta waa ka xoreynaya oo wiilka waxaan ka dhigay free baa ka dhigaya waxaas dhacday free inuu ka dhiganayo inuu la xidho waxa shirqoolka ka dhaxeeyay iyo waxa wiilka sababta lagu haysto iyo sababta loogu talagalay in naaga badan ay soo daba noqdaan waxa dhacday naagahaas ee u shirkoobay oh this women gather against Mohammed Gohe and Taraya have never even has not been free from them. They trying to skip his rights, trying to just stick with him, keeping him back at his insurance card. People who unable to, whoever trying to, his mother begged to help him to get appointment with a medical doctor. She unable to take him to the medical doctor due to the packing his card, his insurance card. The Health Human Services are behind the Health Human Services in Minnesota and Hannibal County behind all this. This young man who are suffering with a lot of different illness, heart disease, they are developing heart disease, blood disease. Accordingly, he's a dialysis. Had not been dialysis the proper way. He has keeping developing what they call blood clots. Of course, when they dialysis to him, they don't push the blood, put some water or some equipment to push the blood out to clean the cells. Of course, they don't really have realized he's anemic. When they cannot find the blood, they were thought that his vein is got clot, blood clot. Of course, if he have what they call anemia, they try to hide all his medical illness. This is unfair.